waxa la yidhaahdaa wanaagga ninku waa raganimada, wanaagga gabadhuna waa hooyanimada, wanaagga ubadkuna waa baarinimada, wanaagga habeenkuna waa xasiloonida. luuqadda ugu xoogga badan dunidu maanta waa aamuska, fariinta ugu saamaynta badanina waa ilmada. ku talaxtagga ama ku fogaanshaha arrimaha qaar, jileeca oo aad ku talax tagtaa waa liidasho, qosolka oo aad ku talax tagtaa waa xaqiraad, raaxaysiga oo aad ku talax tagtaana waa fadhiidnimo. digtoonnida oo aad ku talax tagtaa waa shaki, hinaasaha ama maseerka oo aad ku talax tagtaana waali ayuu isku beddelaa. karaamada ugu weyn ee qofka lagu sheegaa waa edebta, ereyga ugu wanaagsan ee dhagamaqlaan waa nabadda, aarsiga ugu fiicanina waa cafiska, dabka ugu kulul ee qofkubaana waa xiisaha. cilmi ka ugu sarreeya waa qofka oo ku istaaga halka ay aqoontiisu dhab ahaan joogto, waxaannu aqoon u lahayna ka joogsada. dadnimo waxa ugu fiican wejigaaga oo aad dhowrto, adduunyadana u aragto inay tahay keliya xisaab. maanta u qaado duruus iyo cibro aad wax ku qaadato, shalayna khibrad iyo waaye aragnimo ka qaado. aragtida aad gudbinayso iyo fikirkaaga ka fiirso, waayo berri ayay noqonayaan ficil la mahadiyo ama la qoomameeyo. ficiladaada ka fiirso, berri ayay u noqonayaan caado ubadkaaga iyo inta aad xiddigga u tahay.